السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنجامين كارسون أما بن كارسون وأن أي صارت هويني عديسن قبضاس أهان لهن من نقطة نختار قلن أو عانة سياسي حريفة كاو إن مداه وزيرها اسكونا شرح مدحتنمada dalka Mareykanka yaa isla wiilkan yar ee dhigta fasalka shanaad oo ardayda iskuulkiisa ugu yeerayaan damiinkii galaaska iyo doqonkii dugsiga ayaa maalin u noqon doona dhakhtar qalin oo caan ah oo galbeed iyo bari magac iyo sharaf ku leh. wuxuu dhashay Benjamin Carson sanadkii 1951 wuxuuna ku dhashay mandiqada Detroit ee ka tirsan wilaayada Michigan ee dalweynaha Mareykanka. waxayna ahayd hooyadii maamo karti leh oo ay kala tageen ayada iyo ninkeedii laakiin diiday inay kala haraan ayada iyo wiilkeeda. maamo Sonia Carson waxay wax weyn ka bedeshay nolosha wiilkeeda qabiga ah ee aan awoodin inuu imtixaanka natiijo wanaagsan keensado. waxayna ka dhigtay wiil qaamuuskiisa ka tirtiray kelmadda mustaxiil oo markasta aaminsan in uu maalin u gaari doono yoolkiisa. Carson ayaa ahaa arday caajis badan oo aan daneynin wax akhrinta iyo guud ahaan waxbarashada. xilligii uu dhiganayay fasalka shanaad ardayda ay isku galaaska yihiin waxay u arkayeen wiil damiin ah. asiga naftiisaba wuxuu la qabay ardayda aragtidaasi, laakiin hooyadii Sonia Carson waxay ka soo horjeeday fikirkaasi oo waxay ahayd hooyo aaminsan in uu wiilkeeda ahayn qabi damiin ah laakiin leeyahay karti qarsoon una baahan yahay dhiirigelin. sidaas daraadeed maamo Sonia oo ahayd hooyo ummi ah ayaa waxay wiilkeeda u dejisay qorshe guul ku dhamaaday oo ka kooban 3 xeer. xeerka koowaad maamo Sonia waxay ka mamnuucday wiilkeeda daawashada TV-ga marka laga reebo 2 barnaamij oo soo gala usbuucii 2 jeer. xeerka labaad waxay sidoo kale maamo Sonia wiilkeeda ku waajibisay inuu ku dul akhriyo habeen kasta cashirkii uu soo qaatay maanta. xeerka saddexaad waxay hooyo Sonia wiilkeeda ku amartay inuu aado maktabadda si uu ugu yaraan u soo akhriyo hal buug, kadibna sitimaanka dhammaadkii ugu dul akhriyo. hooyadii wuxuu ka soo fahmay buugaas. waxay awooday maamo Sonia in ay guul gaarsiiso wiilkeeda iyadoo dhaqan gelinaysa qorshaha 3 xeer ka kooban. inta ay ku guda jirtay shaqadani maamo Sonia waxay bulshada kala kulantay niyadjabin iyo in lagu tilmaamo hooyo qalafsan oo kadeed ah oo wiilkeeda u diiday in uu la ciyaaro carruurta xaafadda. laakiin waxa afka gacanta la saartay markii la arkay Ben Carlos oo la yimid isbedel weyn. cashiradii iyo buugaagtii uu Carson maalin kasta akhrinayay waxay u suurageliyeen inuu si buuxda oo weliba qurux badan ugu jawaabo su'aalihii ay weydiinayeen macallimiintiisa iskuulka. Carson ayaa qadarin iyo sumcad ka helay dugsiga uu dhiganayay kadib markii uu imtixaanka ka helay dhibco sare. aakhirkii wuxuu ku biiray jaamacadda Michigan, gaar ahaan wuxuu galay kulliyadda caafimaadka wuxuuna ku takhasusay qalliinada. wuxuu ku soo baxay dhakhtar qalliin oo dunida caanka ah. markasta ay Carson soo wajahdo dhibaatooyin iyo caqabado wuxuu dib u xasuustaa kelmadihii dhiirigelinta ahaa ee hooyadii ku dhiirigelin jirtay. sidoo kale kol kasta oo lagu marti qaado barnaamijyada dhiirigelinta ee ka baxa TV-yada qaar wuxuu ku soo celceliyaa hooyadii haddaysan ahaan lahayn dhakhtar ma noqoteen. ayada ayaa ibar sidii loogu diso ama loogu dhuunto caqabadaha. sida dhabta ah wuxuu soo caanbaxay Carson markii uu ku guuleystay qalliin uu ku sameeyay ilmo 7 bilood jira oo madaxa isaga dhaganaa. qalliinkaas oo socday 12 saac kana dhacay isbitaal ku yaala dalka Jarmalka. markii uu ku guuleystay qalliinkaas ayuu haddana galay qalliino la mid ah qalliinkaasi waana uu ku guuleystay. Carson ayaa ku guuleystay in ka badan 300 oo qalliin wuxuuna qoray in ka badan 90 buug. mid ka mid ah buugaagtiisa waxaa laga sameeyay film loogu magac daray Stag on You. sidoo kale Carson wuxuu helay bilado caalami ah waxaana ka mid ah mid uu siiyay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George W. Bush. wuxuu mar isku sharaxay jagada madaxtinimada ee dalka Mareykanka, laakiin nasiibkiisa ma noqon nasiibkii u fududeeyay in uu noqdo dhakhtar qalliin oo caan ah. arrinta in la sheega mudan ayaa ah in Carson yahay siyaasi aad u nacab muslimiinta iyo muhaajiriinta gala dalka Mareykanka ee asalaan ka soo jeeda wadamada muslimiinta, waana saaxiibka ugu weyn Donald Trump. Carson ayaa fagaarayaasha ka difaacay saaxiibkiisa Trump, sidoo kale wuxuu si indhala'aan ah u difaacaa ciidamada Mareykanka ee dambiyada ka galay wadamada Ciraaq, Afghanistan iyo Soomaaliya.